ciidamada idaacadu Cabdicasiis Xasan Maxamed lafda gareen markan waxay helayaan gurmadyo kala duwan waxay doonayaan inay dib u qabsadaan magaalada Baydhabo ay weerar kala duwan ku qaadeen warbixintan waxaan si gaar ah uga eegi doonaa sababta ka dambayso iyo cidda gadaal ka raacayso ciidamada idaacadu Cabdicasiis Xasan Maxamed lafda gareen ee markan doonaya inay la wareegaan magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ahna xarunta gobolka Baay galabta waxay soo bandhigeen ciidamo guud ah oo markaas sheegeen inay ku biireen ururada kala duwan ee ciidamada daacadu Cabdicasiis Xasan Maxamed lafda gareen ee waqtigan sida weyn uga dagaalamaya oo markaas qayb ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya halkaas galabta waxa dib ugu laabtay markaas magaalada Baydhabo gaaray hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sheekh Aadan Nuur Aadan Madoobe oo kulamo kala duwan ka waday magaalada caasimadda Muqdisho marka hore soo dhawaada daawadayaal taariikhdu waxay ku aasaysan tahay 22 bisha 6 ee Juun sanada 2026 haddii aynu ku horeyno magaalada Baydhabo duleedkeeda waxa ka soconaya dhaqdhaqaaqyo kala duwan ee wadaan ciidamada daacadu Cabdicasiis Xasan Maxamed lafda gareen oo doonaya inay markaas dagaal adag ay kula wareegaan magaalada Baydhabo ee markaas xarunta gobolka Baay ee caasimadda ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya muuqaaladan aad arkaysaan waa ciidamo ee markaas ay soo bandhigeen ciidamadii daacadu Cabdicasiis Xasan Maxamed lafda gareen waxay doonayaan inay dib u wareegaan magaalada Baydhabo waxayna sheegeen in xilligan wixii ka dambeeya ay markaas dagaalo kala duwan ay ku qaadi doonaan magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay dabcan tilmaameen in xilligan ay doonayaan inay dib u wareegaan magaalada Baydhabo aadan madoobana galabta dib ay ugu laabtay magaalada Baydhabo caasimadda ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya lama oga halka uu markaas iyo sida uu wajahi doono magaalada Baydhabo duleedkeeda dagaalada ka soconaya ee markaas u dhaxeeyay ciidamada daacadu maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo kuwa taabacsanaa waa markaas ama kuwa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya si gaar ah ciidamada dawladda iyo kuwa birmadka loo yaqaan ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya dib haddii aynu xasuusano wax markaas ka badan 3 bilood ayay ka maqan yahay gacanta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafda gareen oo ahaa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuu ku sugan yahay magaalada Nairobi dalka Kenya halkaas oo uu degan yahay waxaana markaas la sheegay in markaas taliyaha asluubta General Mahad Cabdiraxmaan Aadan Taliishub iyo sidoo kale mas'uuliyiintii hore maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ninkii laga qaaday kursiga oo markaas uu ku fadhiyo oo markaas وحلبان عبد القادر محمد نور الجامع وسيدة أودها لوجا قاضي كونفور قلبيد يمسؤولين كله وطبعا سوين وسور جدا دولة إن عيدا مدن قدال يكرهيان عبدالعزيز حسن محمد لفظ كرين ورمود ياي سيدو كلا عيدا مدن وحورك عيا ومركز أفيين كمامل كونفور قلبيد سوماليا وغاز حسن عبد محمد يا نك سيدو وين عيدا مدن أولا إلينا يا مركز سيدو وين وسور جدا دولة فدرال كسوماليا waxaa la sheegay in mas'uuliyiintaas aan hore u soo xusnayn kulamo kala duwan ay ka wadaan magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya halkaas ay ku sugan yihiin waxaana la sheegay in ciidamadan ay gadaal ay ka raacayaan sidoo kale beele waa markaas dagaal beeleedyo ka dhacay gudaha magaalada Baydhabo ayaa markaas iyaguna qayb ka ah waa markaas colaadda ka taagan waa markaas Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana la sheegay in ciidamadan marba marka ka dambeysay ay gurmado kala duwan helayaan halka dawladda Soomaaliya ay markaan ay iyadu ku jeedo dhinaca maamulka Galmudug sidoo kale waxaa la sheegay in aadan madoobe oo ciidamadaasi xali xoogto ku dooni karaba inuu markaas xal waara ka gaaro ciidamadan daacadu Cabdicasiis Xasan Maxamed lafda gareen ee xilligan ka dagaalamaya gudaha magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya aadan madoobe maalmo ka hor wuxuu tagay magaalada caasimadda Muqdisho kulan ayuu la qaatay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo markaas madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa markaas labada mas'uul ugu sareeyay dalka ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee aadan madoobe hor dhigeen laba qodob kaasi oo kala in ciidamadan oo wada hadal uu la galo oo markaas uu dib uga saaro deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo inuu si awood uga saaro ciidamadan daacadu ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya aadan madoobe lama oga waxa uu la tagi doono magaalada Baydhabo balse maanta ayuu dib ugu laabtay ama gelinka dambe caawa ayuu dib u tagi doonaa magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana ciidamadaasi uu kala hadli doonaa sidii uu wajihi lahaa ama ciidamada dawladda iyo kuwa birmadka iyo sidoo kale kuwa daraawista dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayuu wuxuu kala hadli doonaa sidii uu wajihi lahaa xiisadan ka taagan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya
xalay dagaal kharaar ayaa ka dhacay gudaha magaalada Baydhabo gaar ahaan aagaga laga soo galay magaalada Baydhabo caasimadda ku meel gaarka ah kaasoo u dhaxay ciidamada dawladda iyo kuwa daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo kuwa kale oo isku dhinaca markaasi taabacsan dhinaca maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo ciidamadii daacadu Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ciidamadii lafta gareen qayb ka mid ah magaalada ay xalay soo galeen walow markii dambe ay dib isaga baxeen galabta gurmada kala duwan ay waxay ku helayaan banaanka magaalada hub iyo markaasi ciidamo waaweyn ay wataan waxaana horkacay ugaas Xasan Cabdi Maxamed waxay sheegeen in markaasi xilligan wixii ka dambeeyay tahay xilligii ay la wareegi lahayn magaalada Baydhabo waxayna digniin hor leh ka soo saareen in markaasi deegaanada ay ku sugan yihiin laga markaasi baxo waxaana horay deegaanadaas uga baxaba dadkii shacabka ee markaasi ku sugnaa aagaga hore ee magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka ah sabab la xiriira in markasta uu dagaal markaasi halkaas uu ka qarxayo dadka shacabka ay ku sugan duleedka magaalada Baydhabo ayaana isaga baxay sabab la xiriira dagaaladan ka soo cusboonaaday duleedka magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxayna sheegeen in ciidamadan ay helayaan gurmadyo kala duwan iyo markaasi agabyo kala duwan oo dhanka dagaalka waxayna sheegeen in xilli kasta ay la wareegi doonaan magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya sargaalka hogaamiye ciidamada madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiraxmaan Nishow ayaa isoo dhaqdhaqaaqyo kala duwan waxa uu ka wadaa duleedka magaalada Baydhabo si weyn ayuu dawladii waa markaasi Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen uga soo horjeeday balse xilligan wuxuu la jaan qaaday waa markaasi gudoomiyaha golaha shacabka ee markaasi xilka ka sii tagaya ee shaqada Nuur Aadan Madoobe ahna hogaamiyaha ku meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya dhinaca gobolka Gado ciidamo waxa ku sugan markaasi taabacsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya kuwaas oo iyaguna maamulka Jubbaland ay soo riixayso oo iyadana si weyn uga soo horjeeda dawladda federaalka Soomaaliya waxayna sheegtay inay ka kaabayso agabyada dagaalka ay sidii dawladda federaalka Soomaaliya ay ula dagaalami lahayd dawladda gacanteeda waxa ka maqan maamulka Koonfur Galbeed gacanta ay ku haysaa iyo Hirshabelle iyo Galmudug gacanta ay ku haysaa maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa markaasi ka maqan gacanta dawladda federaalka Soomaaliya ay doonayso inay mar kale xal siyaasadeed lagu gaaro sidii xal waara loo gaari lahaa Puntland marna waxay ku dhawaaqday hogaamiyaha maamulkaasi Siciid Cabdullaahi Dane aan markaasi madaxweynaha maamulka Puntland waxa uu mar kale ku dhawaaqay inuu xiriir ku jiray dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana caawa markaasi dagaalay ka dhaceen aagaga markaasi degmada Carmo ciidamo markaasi saraakiil ah oo kontaroolada magaaladaas ku sugan iyo sidoo kale kuwa markaasi taabacsan oo markaasi mashruuc la sheegay oo ka socda banaanka magaalada ayaan caawa halkaas isku hor fadhiya waxaana waa markaasi kontaroolka degmada Carmo ee markaasi maamulka Puntland la wareegay saraakiil markaasi hubeysan oo mid ka mid ah mas'uuliyiinta mashruuca u socday ee halkaasi caawa kula wareegeen sidoo kale Galmudug xiisad culus ayaa ka taagan waa markaasi taliyaha Nisa Mahad Maxamed Salaad ee ku sugan ra'iisul wasaaraha usbuucan la qorsheeyay oo halkaasi gaar ma tigin sabab la xiriira khilaaf u dhaxeeya Axmed Cabdi Kaariye Qorqoor iyo dawladda federaalka Soomaaliya Jubbaland warkeeda habashiga waa Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe waxa uu sheegay in madaxweynaha madaxweynaha Soomaaliya uu dhamaaday waxa uu halkaas ku hayana ama halkaas uu kaga dhawaaqay yihiin sharci darro sidoo kale maamulka Hirshabelle ayaa isaguna midaan caga badan ku taaganayn sidoo kale musharaxiin horla ayaana isku soo taraya oo markaasi xilka dawlad goboleed Hirshabelle Ali Gudlaaw Xuseen xilligan wuxuu muuqdaa mid gabi ahaanba markaasi ka sii dhamaanaya fila Soomaaliya haddaba waxyaabaha ka soo kordhay xiisadda dalka gaar ahaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya halkan ayaan idin kula wadaagi doonaa